ugu dambeyn taageerayaasha Arsenal ayaa soo gabagaban doona sugitaankoodii dheeraa inay arkaan daafacooda 25 milyan ugu fadhiya ee Kieran Tierney kulan ka tirsan Premier League waxaana ugu dambeyn diyaar u yahay inuu safto kulanka Arsenal ay maalinta Isniinta u safri doonto kooxda Sheffield United ee horyaalka Premier League. daafaca bidix reer Scotland ayaa qarka u saaran inuu safto kulankiisa ugu horeeyay Premier League Gunners waxaana sidaa sheegay macalinka Gunners Unai Emery oo sheegay in xidigan diyaar u yahay inuu safto. xidigan Tierney ayaa sidoo kale waxaa garabkiisa noqon doona Alexander Lacazette oo isaga laftarkiisa kulanka Isniinta diyaar u ah oo muddo dhasbuucyo u dhaawac ku maqnaa. Lacazette iyo waliba Tierney ayaa ku soo laabtay tababarka buuxa usbuucan iyaguna diyaar u ah inay kulankaasi saftaan. daafaca reer Scotland ayaa ka soo muuqday Arsenal laba kulan oo koobab ah. kulankiisa ugu horeeyay waxa kulanka Arsenal ay 5-0 uga badisay kooxda Nottingham Forest Carabao Cup bishii hore halka kulankiisa kale 22 jirkan uu saftay ahayd kulankii Arsenal ay 4-0 kaga badisay kooxda Standard League ee Euroliga. mar la weydiiyay una amri in 22 jirkan leh daafaca hinada ah ama daafaca hibada ah ee lugta bidix waxa uu sheegay diyaar ayuu u yahay inuu ciyaaro kulankaasi. laakiin taageerayaasha Arsenal ayaa u baahan inay arkaan xidigan oo si joogto u ciyaariyo kulan kasto Premier League laakiin waxa uu baahnaan doonaa inuu booskaas kula dagaalamo ama booskaas kula dagaalamo tangiga reer Bosnia ee Saeed Kolasinac. haddaba ugu dambeyn Tierney waxa uu ka soo noqon doonaa kulankiisa ugu horeeyay Premier League sida uu sheegay macalinka waxaana ay noqon doontaa mid xiiso badan inagoo aragna in Tierney uu Arsenal qayb ka soo ahaado. waa admin wariye Maxamuud Fantastic iyo waliba adminada halkan oo idinkaga tagay salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.